wadamada deriska waa wada eegnay oo Soomaaliland ku jirto waana la aqrinay run ahaantii ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee qaranka halkan wuxuu kaga dhawaaqay wadamada deriska inay Soomaaliland ka mid tahay qodobka 32 faqradiisa kow xarafka ah oo isna laga yaabo inaad maaragtay sidii Soomaaliya u burburtay laba kaadlaha iyo saddex kaadlaha iyo afar kaadluhu waa iska bateen dhowr dhalasho ama baasaboor lihi marka waxa ku xusan qaadashada dhalasho dal siseeye inaan xubinta hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku qaadan karin dhalasho dal shisheeye qofkii hore u haystay lagama hadal laakiin inta uu hay'adda joogo haddii uu rabo inuu qaato dhalasho dal shisheeye waa inuu ogolaansho ka haystaa agaasimka iyo madaxda hay'adda haddaba isbarbardhig baanu samaynay ama comparative study oo aanu la eegnay shuruucda kale ee dalka ee weliba geeskan Afrika wadamada geeska Afrika guud ahaan badankooda iyo Soomaaliland ku dheer in baa oran jiray wadamada deriska ee Soomaaliland ka mid tahay oo irbad la senator marka wadamada deriska waa wada eegnay oo Soomaaliland ku jirto waana la aqrinay run ahaantii sharcigeennii 1900 iyo دوجي اللي بقى عايز تجسنا marka مادي تعرف كل بعض مادي بدومية هلا يحلو كذا حلوة شرفت له عندي قبضة بونج فودا واسيرنا لكن عندي أن جوجينو قراعة عندي توسي سمينس واسيرنا إن شاء الله واسيرا حلوانada waxay konseynay muujeen rasaal ku xigeenkii hore xilibaan maadi waxa laga rabaa inaad raali gelin ka bixiso aad golaha hore maato arintii yaro buuq dhalisay waxay la tahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa hadalku waa margi ninna si u yiri ninna si u qaaday hadalkaygu hadduu tafsiir u baahan yahay wuu duuban yahay xildhibaanada golaha shacabka yeynaan isu maaragtay maxaa suugaantii hore ku cusnayd ma doonayo inaan maanta dood dheer ka dhaliyo halkane aniga hadalkaygu waa duubnaa hadduu wax qada faleeyay raalli baa ka tihiin haddii kale guud ahaan comparative study iyo daraasadii aanu samaynay ayaan ka hadlayay baroortuse malaha orgiga ka weyn waa mahadsantihiin waxaan mulaxado yar ka jeedinayaa oo kale arrin maanta halkan ka dhacday oo runtii dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliya gaf ku ahayd ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee qaranka halkan wuxuu kaga dhawaaqay wadamada deriska inay Soomaaliland ka mid tahay markii la yiri raali ka bixina kama bixin wadanka Soomaaliya waa wadan leh sharaf iyo karaamo iyo gobonnimo Soomaaliya oo dhan lagu yaqaan dastuurka qodobkiisa koowaad baa dhigaya qofkii waxa reeban in group gaar ama qof gaar uu sheegto qarannimo gaar ah ama gobonnimo ka duwanta Soomaaliya arintaas waxaan qabaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka markii loo yeero la raali gelin ka bixina aflagaada kale uu ku sii daro wuxuu yiri baroorta orgiga ka weyn marka arintaas waa arrin gaf ku ah dastuurka qarannimada Soomaaliya golahan waa golihii laga ilaalinayay midnimada iyo qarannimada Soomaaliya haddii dadka qaar ay aaminsan yihiin in wixii la doono la iska oran karo haddana xildhibaan la iska noqon karo mushkilad hor la weeye dastuurka aynu haysano oo aynu ku dhaqanno waa dastuurka adkaynaya midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada Soomaaliyeed waa jiraan Soomaaliland inay tiri dawlad gaar ah nahay laakiin iyada iyo dadkii la xisaabtamaya weeye laakiin xildhibaan halka jooga oo ku jooga midnimada Soomaaliya inuu ilaaliyo inuu maalin kasta isa soo taago oo yiraahdo Soomaaliland waa wadan gaar ah ama wadamada deriska la mid tahay baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya u taala go'aanada laga qaadan lahaa arrinta waa mahadsantahay